sidii madaxweynuhu sheegay go'aanada goluhu marba cid bay ka farxinayaan siyaasaduna waa shacabkii madaxweynuhu sheegayoo gudaanad filim baa mararka qaar lagu soo dhigayaa markaa nimankaasi gudaanay filim baa lagu soo dhigay waana laga gashaday laakiin xagga procedure-ka iyo xagga sharciga booshinkaasi 100% sax buu waxa halkaa ka muuqatay in darafkan mooshinka ka soo horjeeda ay salbabaqeen oo aanay diyaarsanayn fadhigaasi uu furmo haddii hal xildhibaan soo hadho golihii wuu fadhiyaa laba tusaalaan keenaya waxaa dhacday berigii golihii hore in qayb ka mid a xildhibaanadii hore ay soo dhigeen mooshinkii kooramkii bay gaadhi waayeen waxay noqdeen 41 xildhibaan 41kii xildhibaan iyagoo ah oo golihii fadhiya ayaa markii 2 saacadood fadhiyay nin xildhibaan ah oo aan war haynin kooxdan mooshinka wadatana kamid ahayn baa soo galay kadibna saaxiibadii way u yeedheen wuu soo fadhiistay waa la xaadiriyey markuu arkayn mooshin meeshii yaalla dibadda u soo booday fadhiga nasiib ku bilaabmay marka waa lagu buuxsaday waa tactics waxa kaloo dhacdaa in maalintii wasiirka waxbarashada uu golaha ka hadlayay saxaafadda oo dhameeyay goluhu 42 ka badan buu ku furmay xildhibaano badan baa su'aalo wasiirka weydiiyey wasiirkuna si faahfaahsan buu ugu jawaabay waxay markii dambe kowdii iyo barkii la arkay in hal xildhibaan oo quri wasiirka hor fadhiyay oo dhageysanayay dee lama odhanin kooramkiiba hal xildhibaan baa ka soo hadhay golihii iyo kooramkiiba buuxsan waayay wasiirku ha iska tago kol haddii wasiirku markuu hadalka bilaabay ee shirku furmay kooramku buuxay xildhibaan qura hadduu soo hadho kaasaa golihiya waxaan kaloo jirta anigu maan ka mid ahayn xildhibaanadii subaxnimadii hore yimi doodii golaha ka socotay ina kumaan qornayn hase yeeshee waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii markii ugu dambeysay 12 golaha yimi waxaan u imi mooshinkan oo la akhriyey oo loo dhiibay gariyay sharciyaqaanka golaha sharciyaqaankuna aanu ka jawaabin xildhibaanada ka soo horjeedaana qaarna dabadda joogaan qaarna golaha dhex fadhiyaan qaarna markaa soo baxbaxayaan oo taagtaagan yihiin markii sharciyaqaanku ku dhawaaqay in mooshinkaasi sax yahayna qaar baa baxay markaa waxaa halkaa ka muuqatay in darafkan mooshinka ka soo horjeeda ay salbabaqeen oo aanay diyaarsanayn waayo arrimahan iminka ay codsanayeen waa in laga doodaabaa la diiday in dib loo dhigaa bay ahayd arrimaha inay golaha ka sheegaan bay ahayd waxay ahayd inay dood soo jeediyaan oo yidhahdaan mooshinka ha laga doodo waxay xaq u lahaayeen inay yidhaahdaan golaha fadhigiisa dib ha loo dhigo 3 xildhibaan oo golaha ku filaa inay yidhahdaan dib golaha fadhigiisa ha loo dhigo dood bay soo jeedin kari lahaayeen way ka hadli lahaayeen waxay sameeyeen dayacaad ay aragtidooda dayaceen maxaa yeelay golihii bay ka baxeen taa marka may wada bixine qofba mar buu ka baxay marka dee wuxuu sidii madaxweynuhu sheegay go'aanada goluhu marba cid bay ka farxinayaan siyaasaduna waa shacabkii madaxweynuhu sheegayoo gudaanad filim baa mararka qaar lagu soo dhigayaa markaa nimankaasi gudaanay filim baa lagu soo dhigay waana laga gashaday laakiin xagga procedure-ka iyo xagga sharciga booshinkaasi 100% sax buu